السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوريواد أخيارتا ميل كاستو دينادا كجوجتين waxaynu maanta soo gudbinaynaa webiyada mara dalkeena Soomaaliya. Webiyada waa nimcad Ilaahay subhanahu wa ta'ala dalkeena siiyay. Webiga waxaynu ka helaynaa faa'iidooyin aad u fara badan. Wadankeena Soomaaliya webiyadu waxay ku soo kordhin dhaqaale aad u fara badan. Dad fara badan oo Soomaaliyeed ayay noloshooda ku tiirsan tahay. Dalkeena Soomaaliya waxa dhaxmara laba webi oo kala ah Jubba iyo Shabeelle, waxayna ka yimaadaan dalka Itoobiya. Webiga Jubba waa webiga ugu ballaaran ee mara dalkeena Soomaaliya. Waxa uu dhererkiisa gaarayaa 800 kiiloomitir. Waxa uu wadankeena Soomaaliya ka soo galaa dhanka Itoobiya. xuduuda gobolka Gado leeyahay dalka Itoobiya, meel u dhow magaalada Doolo. Gobolada uu maro webiga Jubba waa gobolka Gado, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose. Magaalooyinka uu maro waxaa ka mid ah Doolo, Luuq, Buurdhuubo, Baardheere, Bu'aale, Jilib iyo Jamaame. Webiga Jubba waxa uu ku dhamaadaa oo badda kaga dara meel la yiraahdo Goobeyn oo Kismaayo u jirta 25 kiiloomitir. Webiga Shabeelle waa webiga labaad ee mara dalkeena Soomaaliya. Waa webiga ugu dheer mara dalka. dhererkiisu waxa uu gaarayaa 1500 kiiloomitir. Waxa uu dalka ka soo galaa xadka gobolka Hiiraan la leeyahay dalka Itoobiya, meel u dhow magaalada Feerfeer. Waxa uu maraa gobolada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Magaalooyinka uu dalka ka maro waxaa ka mid ah Beledweyne, Buulaburde, Jowhar, Balcad, Afgooye iyo Janaale. Webiga Shabeelle waxa uu ku dhamaadaa meesha la yiraahdo Dhaytubaako oo u dhaxaysa magaalooyinka Jilib iyo Shalambood. Waxaan rajaynayaa inaad wax fara badan ka ogaatay webiyada mara dalkeena. Haddii Ilaahay idmo wayn halkan ka soo gudbin doonaa taariikhda wadankeena Soomaaliya oo ka kooban. Haddii aad heesaysay taariikhda wadankeena Soomaaliya, halkan ku soo beer YouTube-keena subscribe saaro. Haddii aad Facebook nagala socodina follow dheh. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Intaan muuqaalkan aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.